lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada hanka kama tiro isku kama haro wararka naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in ciidamo fara badan oo Itoobiyaan ah saaka aroortii hore gudaha u galeen magaaladaasi ciidamadan oo ah kuwa military ah ayaa la sheegay in la wareegeen xarumaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya sida xarunta baarlamaanka iyo madaxtooyada wararka ayaa intaas ku daray in xaaladdu ay kacsan tahay isla markaana la ogeyn halka uu ku sugan yahay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar arintan ayaa lagu soo waramayaa in ay timid kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dawladda federaalka ee dalkaasi sidoo kale warar hoose oo helaysa Shabeelle ayaa sheegaya in madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu damacsanay inuu ku dhawaaqo madax banaani ka dhan ah dawladda dhexe ee Itoobiya xildhibaano ka tirsan ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo la hadlay warbaahinta ayaa si kulul u cambaariyay dhacdadaasi annaga oo nabad qabna oo seexanay ayaa saaka waxaan ku waabarisanay ciidamo aad u tiro badan oo gaashaaman oo lagu soo shubay magaalada Jigjiga guud ahaan xarumaha dawladda madaxtooyada xarunta xisbiga iyo dhammaan goobaha mataqaanaa shacabka ay ka adeegtaan intaba waxa dhibaatooyin iyo hagardaamoyin aad fara badan ay ku hayaan shacabka madaxweynihii iyo mas'uuliyiintii ugu sarreeyay deegaanka hadda xaalad ay ku sugan yihiin ma garanayno waxa weeyaan madaxtooyadii waxa isku weeray ciidan aad u tiro badan xaaladda in ay dileen inay mataqaanaa afduubeen iyo waxay hadda xilliga madaxweynuhu ku sugan yihiin ma ogin saaka deegaanka Soomaalida Itoobiya aroortii waxaan ku waabarisanay iyadoo kaare iyo beebe iyo ciidan xoog badan ku wareegsan yahay ciidanka wax loogu wareejiyay wax loo keenay ma garanayno korbaana laga qabsaday dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dawlad deegaan buu ahaa Soomaalida Itoobiya dalka Itoobiyana wuxuu ku dhisnaa federalismka dalka Itoobiya uu ku dhisnaa qoomiyad dalka Itoobiya kamid ayaanu nahay federaalkuna wuu noo dhaxeeyay marka maadaama dastuurka dalka Itoobiya ay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku dhisnay dastuurka Itoobiya waa la jabiyay waxaan u sheegnaa cid walba ay khusayso inaan ahayn dad la muqoonin karo nalama muqoonin karo kaliya dastuur baa lagu wada joogi karaa maxaan ku rahay hal mar hal daqiiqo inta aanu nool lahayn dadkooda dalkooda iyo maxaan ku rahay diintooda